wasiirka beeraha Soomaaliland Axmed Muumise gudida qandaraasyada qaranka iyo maamulka gobolka Togdheer ayaa bixiyay cid ku guuleysatay mashruuca beerista dalagga ee deegaanka Beera. Gudoomiyaha gudida qandaraasyada qaranka Nuux Maxamed Xuseen ayaa shaaciyay shirkadda ku guuleysatay qandaraaskaasi. Aankii 700 hektar ee qodaalka ahaa ee magaalada Beer lagu tartamayay waxa ku soo tartamay saddex shirkadood. shirkadda ugu horeysa magaceedu waxa weeye Libaax Construction, shirkadda labaad Barwaaqo, shirkadda saddexaad Pacific. shirkadda la yiraahdo Barwaaqo ayaa tartankii ku guuleysatay oo ku heshay 739. sidoo kalena gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo wasiirka beeraha Axmed Muumise ayaa faahfaahin ka bixiyay faa'iidada mashruucan uu leeyahay beeralayda deegaanka Beera. sidoo gudoomiyuhu inoo sheegay waxa tartan xalaala si wanaagsan baa loo tartamay, si wanaagsanna waa loo kala helay. shirkaduhuna hortiina waa arkayseen way ka hambaliyeen iyo ahmiyadu iseenaysa wax soo saarka dalka. runtiina waxaan Ilaahay ka rajaynayaa sanadka soo socdana gobolada dalka oo dhan birkaasan inuu qabanayna dadka beeralayda wayna u tartamayaan deegaan kastaba. birka biyaha iyo dhismaha guryaha un baa la qaban jiray, laakiin waxa ku soo biiray beeri baa ku soo biiray. waxaynu kor u qaadaynaa wax soo saarka dalka. anaguna wasaaradda beeraha waxaan diyaar u nahay inaanu iyo hawada la garab joogno dadka beeralayda si ay wax soo saarka u kordho. waxaan Ilaahay ka rajaynayaa 3 sano soo socota inayna khudaar iyo raashin dibadda inooga imanaya haddaan joojin weyno inay yaraan doonaan. Xabiib Ciga Xasan, Universal TV, magaalada Burco.